qaybtii labaad anaa fanaankii mise abtoorkii cali xudiid isbaayleyse ilaa xalay miir manahayno duwadii aan qaybta koowaad eegan ku soo sawiray kololo burumaasin magaceedina la yidhaha nooradol oo ahayd dooda ay jabeelaha ku eejiyeen ay ahayd dawada ay jabeelaha kulmis ku eejiyeen saraakiisha warbin iyagoo noo yaqaano faashtii cabasiyaalka farmaysaan magaciisa moodo arraxma oo ka yaah magaalada carma markii ka horeysayna dawada waxay sii warar badan oo adduunkaaba dhowr socdood oo soo kolol baramasiin mise nooradol ay siiyeen dhakhtarka weynaan dhahar dhanka maskaxan dawadii baan baaray haddana hooyaday igu diiday hooy way eejinaysa ima maqasho oo beri bay dhakhtar etoobiyaan eegiisa Addis Ababa oo igu midi jiray dhawaqa talo la yidhaaho moodikid dhakhtarkii Emmanuel miyuha dhakhtarka maskaxda Addis Ababa ahaa iyo dhakhtarka weyne jijiga maskaxda Addis Ababa Emmanuel waa magac buu lahay iyo ka jijiga moodikid baa la oran jiray iyo chlorpromazine nooradol dawadii waan baaray bisi saraakiisha eejisa warbin iyagoo noo yaqaano faash way daldashaan markaas jidadii xigaa dhakhtar labadii jeer dhowrka sannadoodii hore dhakhtarka dhaharaligiyo nooradol soo siiyey labadii nina dadiyey sayid cabdisalaam hebel galeyra bokor iyo ismaaciil darsi yuusuf cabdikarim fiqi sayid galeyra bokor ismaaciil darsi yuusuf cabdikarim ibrahim hooyadii waxaba galaqay ibrahim marka aabbahay xudiid iyo hooyaday xudiidba warsangel labadba waxay keeyiin ismaan ibrahim gobyuud abokor oo waxaan waalano heeskalna riihayo yaa odhamaliyo tolmugi iyo odimugi iyo almarabe markaas kidadii xigaa shalay iga soo celiya magaalada haarun sadiiq cabdisalaam hebel galeyra bokor magaceegu cali maxamed ismaaciil xuseen cali xudiid ismaaciil xuseen galeyra bokor weyo magacyadu iskama baxan magaca galeyr iskama bixin run baanu galeyroonaha oo galeyrkii bisadiyo libaax maska jiirgon kama xaqaana dalxun bay ka xanaaqaan sidaa awgeed baa galeyrka anaga galeyrka libaaxi bisadaha laagaha iyo shaambadaha dowladaha iyo calaamada loogu dul sawira galeyrkii bisadiyo libaax dalxun kama xanaaqaan waxaan ujeedaa masi jirin kama xanaaqaan wixinoo dhan bay ka xanaaqaan saa awgeed ba calaamadii laagaha iyo shaambadaha dowladaha ugu dul sawirana takalana abtooranaha filimstar waa xidig weeyo aniga miduka kala boorta khatarada saaratiif fanaaniintu mise abtoorayaashu waa xidigo kacansan dhulkaynu joogno oo la yidhaaho dhulkaynu dayaxaynu joogno waxaa la yidhaaha planetis dhul baa la yidhaaha
ahayn planetes Jupiter, Mars, Saturn, magacyo noocaas kala leeyihiin. Dhulkaynu joogno planet Earth iyo Saturn iyo Mars iyo Jupiter xidig ka caansan oo la yidhaha alu cideedanahay oo waan bilaan baran baan joogaa buurta baran ii muuqata waxaa la yidhahaa almadow musalimiin oo mamad taalada waa aniga Sara Devi, Karina Kapoor, Schwarzenegger actoorayaasha adduunku waxay ugula jiraan qur-aanka oo ah heesteeda ugu yar waana ah taalada almadow musalimiin mamado walaalaha heestaa ugula jira boqorada adduunka meel buura walaalo daramandara Sara Devi khadalada almadow bagayaasha batooldaan fanaaniinta adduunka oo dhan waa xidigo oo walaalahay waa boqoro walaalahay oo igula jira qur-aanka oo heesahay ugu yarayna waa ani cadim ali ciidanahay haddaba sheekada waxaan ku soo qaaday hudadii xigay Sidiiq Cabdisalaam iyo kuwa kala hooyadu kir dhakhtar armaha markii horena dhakhtar armaha la yidhahaa Raxma clinic oo breefad ah isbitaal breefad ah daba samayso si laxli wanaagsanay markaas mana hubeen waxaan idhahaa aakhire haddii xagiibii hooyada xawageni laqay iyo Sidiiq Cabdisalaam dadii xigay dawada ay hejinaysa sunta ay siiyey dhakhtarka iga soo qoray aakhire xaggii ka joogaan Sidiiq Cabdisalaamkii iyo hooyadeedii dawada khatartee sunta dhakhtarka iga soo qoray xaggee bay aakhire ka joogaan haddii hooyada xawageni laqa tahay iyo Sidiiq Cabdisalaam oo dadii xiga ay yihiin suni maysin lahayn hooyadii ingiriiska ay joogtay ay keeni lahayn ilaa tacsidii aabbahay cudeedi oo ingiriis ku dhintay fiisa layma soo dirin hadda ku dhawaad 40 sannadood fiisa ingiriisiyaan sugay wax la-aan baa la dhoofi waayo habka lacag la isku diro halka aan joogo baran waa sahalka Puntland iyo shirkadda gooliso waa eber sahalkii dhowr sentimood marka meeshaaynu joogno haddada ka hadlay adduunka waxaan ogahay aakhiro sheeka bere u dhacday Jabuutan joogo xaafadda Hambuli balaaska ay basasku kasoo meesha ay basasku kasoo wareegeen waxaa la yidhaahaa balas terminus Hambuli xabaalahan waa xabaalaha Hambuli laba carabtii ka Soomaalida xabaalaha Hambuli marka xabaalaha terminus waa wixii dhammaan barantaynu joogno Maraykan Kenya xayawaan Chinese Maraykan Arab dowladaha carabta Maraykanka New York xabaalaha adduunka xitaa tuulada baranayaan joogo waxaa ku yaala albaabka terminus albaabka xabaalaha Hambuli ee Jabuuti ee terminus marka waxaa la yidhahaa restaurant terminus termination bay ka timid ereyga terminus dhammaad weeye markaas balas terminuskii Hambuli ka lugiyo digad wadada tareenka raacay bas waxa yar cabaar markaas socda waxaan gaaray digadii Jabuuti waxay markaas socda waxaan gaaray xerada tigirka laga goostay tareenka oo tareenku istaago ayaan haddana sii yaraa dhaafay marka xeradii Shamaadafer Jabuuti oo Itoobiyaanka wadada isku xidha Jabuuti iyo Itoobiya
xarunteeda markaan dhaafay tiirka laga goostay tareenadu istaagaan wadadii baan si yara socdo dhaaf faarisay tareenkaa ku dhammaado wadada tareen bar baa kusoo baxday markaa tareenkaa ku dhammaaday hadan ku yidhaha bilas terminuska xunguli jabuuti ku dhammaaday filimaan jin ins diinta islaamka iyo kiristaanka filimaanta ugu yar diinta islaamka waxaan aqaanaa phoenix ee cabdulla xasan marka aabbahay xuduudiyo ayaamo dhaweyn oo ayaamihii daahirayaal madaxweynaha ka ahaa somaliland daahirayaale iyo maxamed cali shire garaadkii warsangeli iyo wuxuu casumnaa aabbahay xuduud baa u casumnaa ismaa samatar la oran jiro gabadh adeerka cali xuduud laba inaga qabo oo habara wala reer sabatara markaase waxaan nimi hudhaal dalxiis iyadoo aan yaanbannahay aragtida indha dheeraado cabsi ay dheeraado waxay dadku arkaan dad wadada la goglayo xabaalo wadada la goglayo la jirayo xabaalo inta ilaahay naga raali noqday allah ambatukum min alardi nabaatan suma yaciidukum yakhrijukum ikhraaj waa aayad qur-aan tiraha haddeenu meeshaan qofku aslo qofkaa ka beerma laftimana haddeen luku ka asno ama laf cambaaso geed cambaa meesha kama beermayo qofkana meesha lagu aso qofkiibaa ka beerma marka geedka qabriga ku dulyaala oo jeerada mise wadnaha waxa ugu qaalisan baa xabaalaha laga soo gooyayo oo jaado dariiqa lagu iibiya inay dadku ila arkaan mahubo markaasaa soomaalina toos uma yoonan waa nalaanaa libaaxya oo iska dhigaya inay ka baqayaan mise dadka ka tafirma libaax inay ka baqaya inaga iska dhigaya mise ka xishoonaya ay lacagaha shaambadaha kusoo sawiraan oon ka baqayna waa iskaga dhigeen marka iyagoo wixii edab daraada libaax wax walba dowladdaa samayso dowladda waxba kama baqdo dowladdii xabaalihii maray ayaamihii dhaweed lasoo foqo tubaa ku jiray dowladdii guryahooda ku celisay sababtan waxay tahay gabdho buushashka ka shaqeeyo ay jabtii ay dhisku dhaceen buushashka ka shaqaysta baraan boosaasa xamar gabdho yaryaroo buushashka ka shaqaysta xabaalaha gabdhaha laga soo hadaa dowladdii iska dhigtay inay isbitaalkii xamar mise xaruntii dowladda xabaalaha ka rar lahayd dhisma ku wadnaa bay iska dhigay inuu caruur laga soo hado xabaalaha ayay ku jirta waa gabdhahan jabtida iyo airisku uu ku dhacee sidii loo wasiiyey buusha ka shaqaystay shaaha kariyadii buushka luqayla ka shaqaysta gabdhahaasoo kale haddaad aragto cid lahayn hada xaqullah xaqudaa min xabaalaha laga soo hadaayo dowladdii inta ay iska dhigtay meel dowladdu dhisanaysan xabaalihii xamar ka dhisanayna oo xabaalahan duminayna iska dhigtay xabaalihii dhibaataysnaaye iyagoo geeda sheerad laga soo goostay mise inta xabaalaha maafiyadu toosiso buushash ka dhigtan soo dhalaystu ku yiraahiin gabdhahaasoo kale ayaa guryahoodii lagu celiyey iyo wixii lamida dadkii rag iyo dumarba wixii dhibaataysnaa xabaalaha laga haday ayaa waxaa ku celisay dowladda waa laga baqaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladoo dhan waa laga baqaayo ayaama dhexdaansa dhowr sannadood ka hor ay islaamka muslimiinta adduunku ku mudaharaadeen madaxweynaha faransiiska iyo macalinkii faransiiska haya la yiri nebigu sawiray taariikhda iyo dhowr jeer oo kale waxaan ka hadlay muslimiintu caruur waa laga saxsayay oo dowladaha hormaray the more developed countries oo ah faransiiska ingiriiska maraykanka
soomaaliya ha noqoto dowladaha hormaray oo waxaan soo bandhigay macalinkii adduunka ugu yaraa oo adduunku yahay sawir sawda waxaan soo bandhigay inuu adduunku yahay sawir oo macalin sabuurad ku sawiray tirtirana karo baabi'in karo marka macalinkii adduunka u yaraa inuu awoodo inuu sabuurad tirtiro sabuuradoo ah sawir oo macalinku sabuurad ku dhex sawiray ayaa macalinkii adduunkii ugu yaraa soo bandhigay sabuurad tirtiraya sabuurad adduunka oo ah adduunka islaamkiisa kiristaankiisa ahlihiisa sabuurad buu ku dhex yalaa oo macalin sawiray wuuna tirtiri karaa qofala dowladaha hormaraa saasanayo walaalihiina hormaray waxa ka bartaayeer ee sheekadii hargeysa oo dhaa dalxiis waxaan kusoo hadal qaaday aabbahay xudeydi oo wata filinkiisa shahaadada filinkiisa cabdalla xasan fanaaniinta magaca kuma yar waxaan ka baqa waa sakhraamiin adagoo geesiino waxaan ka baqa inay yidhaahiin aabbahay mise walaalkii inay xudeydi oo fanaan aabbahay xudeydi lagu yariyo ma jiro ama ana waan dhalay cali xudeydi oo sakhraamiin adagoo geesiino intii ooyaan bay odhan lahayd aabbahay mise walaalkii magacayga ma garanayo xaaska subxaanyo gabadha mufanaag subxaanyo xaaskiis maanageedu ayaa baabuurka lagu waday aniga aabbahay wuxuu tikabakiisa shahaad felix cabdalla xasan xudeydi oo kaftamaya wuxuu ka waday adduunkan haddada aan idinla hadlay salaadii casar mise salaadii maqrib lagu jiro filinkiisa cabdalla xasan buu ku tilmaamay oo cabsiya la dhiman doono marka wuxuu yidhi dhiman soo kaftamiyo laha dhimashadan ka baqayaa hadal weyn hadal maxamuud ismaaciil xudeydi yiri walaalihii waxaa kamid a isaaq ismaaciil xudeydi daro ismaaciil xudeydi hawiye ismaaciil xudeydi samaro ismaaciil xudeydi hawyaa ismaaciil xudeydi dir ismaaciil xudeydi kamid walaalihiiyo hadal weyn oo qaaliya dhimashada ka baqaya iyo cajiladan hadda aynu fadheen maqrib lagu jiro haddada anugu idinla hadlayo oo felix cabdalla xasan oo cabsiyo la dhimanayeen inaga bedela dhimashada ka baqaya cajiladii inaga bedelo ka wadi dhimashada ka baqaya markuu yidhi gees baa yimi hadal weyn buu ahaayo dhimashada ka baqaya hadal weyn buu ahaa hadalka haddaad taa dhimashada ka baqaya gees baa ku yimid gees waa beel geesugu hadduu xanuunka dareemayso ma baqi lahayn geesi oo dhan haddaad maqasho meelayna joogin hahaa lagu daro soo laba kama aho ma ogid geesi meelahaynan joogin xitaa geesiyiinta joogaynu ogaan karnaa si halhal marka lagu daro laba uga tahay meel walba oo waxaanu ogaan karnaa inuu xanuunka ka gaashaamaya furiga xanuunka ka gaashaama waya geesu oo ereyga geesu waa been hadduu xanuunka dareemay geesku baqi lahayn moogta marka geesku computer buu xanuunka ka sitaa maayada quraan ka sitaa ma gaashaan buu ka sitaa ma indhasaraad buu ka sitaa adugu xun buu geesu ka sitaa xanuunka adugu geesigu waa beenaalay fulay ah xanuunka wax ka sita marka ereyga geesu waa beeno fulay baa run kaabaha xudeyda felix shahaadada felix cabdalla xasan wata oo ayaamahan noolaa وداهريالي وعسنا من هنا صومالنا محمد علي شريف قلت كورسي بليس واسبا تركي ريسا بطرها ورا وعسنا وقلنا قبا قورا هذاك عارف ورد الحسبة النمو من قلقاي واكي السنة اللي راهو يربشو ولا وريسكر وريسكر حتى عوشا كرينا مشيكيين دونه baran buu haddada ila joogaayo wixii soo guuray maalinta baxdhita aabaa yar ilaalay marka ma raaxad laga ilaalay qaadkii raaxad laga ilaalay hay idi xamaamka maalintaas u yimi aabba ku dardaramay maanta aabba dhintay waa ku dardaranaa waa ka ilaaliyo raaxo dhan buu ilaalayo baran buu joogaayo صفية بيدي لها ونحرست بوقات كان يبين تلعب ضلال اللي بيايو
kooxda Liibiya Samatar xuduudi baa la yidhaah kaasay rabashay iyo waxaa naga jooga sayid sareyne iyo hooyada xawo kala yaaba idaacadda Somaliland TV baa timi in rabtay inay weerarto si hadda u shaqeyn doonayo Samatar baa rabasho dhakhtarkii shalay leegii dawada sunta ee chlorpromazine ii soo qoray nooradolka ii soo qoray balwaddan uu ii diiday qaad iyo sigaaro qaadna anaa loo beeraa sigaarka ee dadweynuhu yaqaanin wax caadiya waa kuwa tarabaano caadi maaha qof walba muuqaalkiisa iyo dhawaaqa magaciisa isu eego dhawaaqa boqorsa muuqaalka aabba xuduudu meeg waa boqor waa magaca aabba xuduudi magacayga aabbaha xuduudiyo aan ahay xuduud waanu marka ingiriis lagu yidhaahana dhawaaqa muuqaal king dhawaaqa king soo muuqaalka ugu meega Mr. Kingdom waa aniga diyaanadom Elizabeth ingiriiska boqorada ingiriisku waa Elizabeth dom diyaanadom Tony Blair dom يعني كingdom maaha ma oran karo waa walaalahayna maaha boqorada ingiriiska waan ahay aniga wey waxaan sheekada ku soo qaaday intaasoo kun oo sannadood adduunka wax laga cabeeyey king size aniga waa magacayga fanaan baan aho dowladda fanaaniintii qaadkii sigaarka oo fasaxday aniga iu fasaxday oo anaga la cabaa oo waxaan oran karnaa haddii cabdiraxmaan la yidhaaho cabdiraxmaan size doono haddii faarax la yidhaaho faarax size doono haddii sahre la yidhaaho sahre size doono ayaa la oran karayaa haddii nuur la yidhaaho nuur size doono ayaa la oran karayaa laakiin king sizeka la cabo waa magacaygo anigoo fanaan ah king magacayga la yidhaaho ayay dowladdii ciidanka u fasaxeen qaadkii sigaarka iyo khamriga ay king size ku dul qoran tahay laakiin khamriga sigaarka qaadka jaadka xashad way kooyihiin oo mamnuuc anana la caba anigii king sizeka loo sameeyey magacayga iyo qaadkana loo beeraba oo xuduudiyada kamida ayuu dhakhtarka shalatole ii diiday qaadii sigaaro waa iska aamuso waxaan ogahay adduunkana hubaysane dhalinyarada Soomaaliyeed oo badan wadaadada la dagaalamay in laga gardaray baa ogahay balwadooda la farageliyey ka hadal baaysan mise adduunku wuu tuutaysan yahay ciidanka dhalinyaradii caalamka kulli adduunka dhow wadaada laga ashkatanay dadka balwadda u diiday marka dadka balwadda u diiday wadaada loo baan ka yara ashkatanay hayaabad والسلام عليكم ليش آخر نوغو ليش عندهم جونا آخر نوغو آخر عندي هو يدعم جوت مسلسل عبد السلام تديه جو صنع ميسين الحيني إنجليز كبير في الحين والرئيس دور مليون دولار maalmeedka raggu ka qaylo ayay siinahay oo qorqore qaadamaan toosan lahayn qorqore qaada toosan meesha aakhira